runtii in aad isugu timaadeen arrimaha xoolaha waa wax waddankan muhiim u ah markii laga fiiriyo dhaqan iyo dhaqaalaba dhaqaalaheena ku tiirsan weli ku tiirsanaan doona dhaqankeenna ahaa aan aad ugu dhaqnayn aadna ugu faraxsannahay laakiin waxaa dalka ka socda dib u habeeno kala duwan oo aan aaminsanahay inay wax idiin tari doonto ha ahaadaano dib u habeen dhaqaale oo mar dhow aan aaminsanahay in hay-adaha horumarinta adduunka oo dhami ay fursad u heli doonaan inay maalgashadaan waddanka markaan soo gaarno qaybtii ugu horreysay deyn cafiska horaanta sanadka soo socda haddii ilaahay yidhaahdo macnaheeda waxay tahay xoolihii aan dhoofin jirnay inaan si kale u beddelno mustaqbalka inaan warshado leenahay oon halkan aan ku samayn karna wax walba qaab walba oo aan uga faa'iideysan karna aan uga faa'iideysano ama iyaga ha noqdaano ama hilibkooda ha noqdaano ama maqaarkooda ha noqdaano ama dadka Soomaaliyeed oo ka faa'iideysanaya ha noqdaano oo shaqo ka heli doona waxaan u baahannahay dhaqankeena aan xoolaha ku dhoofi jirnay annagoo sii wadayna inaan ku salayno qaybta la xiriirta dib u habeynta dhaqaalaha iyo qarniga 21aad oo aan ku jirno macnaheedu marka waxay tahay shaqooyinkii ahaa dabdamiska waa inaan ku beddelnaa shaqooyin ku salaysan hadaf fog haddii ilaa yiraahdo arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha amniga iyo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada oo kulligood xukuumaddu ay u leedahay hadafyo waaweyn aan bilownana dawlad goboleedyada qaarkood inaan gaarsiino hadafyada xukuumadda kuwa kale aan rabnay inaan gaarsiino si waddankoo dhami uu u lahaado hadaf midaysan midimo guulaysan karo haddii aan kan kala guulaysan dhaqaalaha iyo siyaasaddu waa isku xiran yihiin dhaqaalaha iyo amniguna waa isku xiran yihiin dhaqaalaha iyo arrimaha bulshaduna waa isku xiran yihiin kulligeenna waa aan ka wada shaqaynaa intaasna waxaa isku xira annaga oo ah dad Soomaaliyeed adduunyada meelaha nala ku yaqaano aan ugu horeyno waxaa ka mid ah in dadkeennu ay yihiin dad ganacsada ganacsigeennana xooluhu ay ugu horeeyeen maadaama aan dunida inteeda kale marka ka xoolo badannahay kana horeyno waxaan rabaa 5 sano soo socota in wasaaradda iyo kulligiin aan ka wada shaqeyno sida aan u horumari lahayn sektorka xoolaha sababtoo ah waxaan aaminsanahay inay dhaqaalaha waddanka kobcideeda door weyn ku yeelan karto waxa kale oo aaminsanahay dad badan oo Soomaaliyeed inay shaqo u abuuri karto waxa kale oo aaminsanahay suuqyada adduunka kuwa ka badan hadda kuwa aan albaabadoodu noo furan yihiin inay noo furi karto aan xiriir la yeelan karno waa u mahad celinayaa wasiir badni iyo wasaaradda waxa kale oo celinayaa hay-adaha horumarinta adduunka oo nagala soo qayb galay waxaan u mahad celinayaa dhammaan dawlad goboleedyada ka soo qayb galay shaqada dalka dawladda federaalka kaligeedna ma qaban karto dawlad goboleedyada kaligoodna ma qaban karaan in horumarinta iyo kobaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka laga wada shaqeeyo waa mas'uuliyad ay nasaareen dadka Soomaaliyeed ama xamar joog ama jowhar joog ama kismaayo joog ama baydhabo joog kulligeen waxaan nahay adeegayaasha shacabka Soomaaliyeed
si marka aan hawshaas iyada u gudano wada shaqeynay waa muhiim waxaan marka idinkaga hambalyeeynaayaa kulligiin inaad halkan joogtaan waxaan rajaynayaa in hawshan aad wadaan ay miro dhal noqoto waxaan ka codsan doonaa wasiirka go'aanada aad ka soo gaartaan inuu keeno golaha wasiirada si aan idin kala shaqeyno fulinteeda hadii